بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي ذو كحرم برتدي يوتيوب كهني جافولي سود دواذا بليز جنال كهني جافولي أدي أكو عصبتها سبسكرايب نوصار لايك ده شير ده كومنت نكبحي أصحاب تاسي جارسيسي وقفا إيديستان haddii aa maxay talo iyo tusaale noo hayso ama wixii aa sameynay ku qanciyeen ama aad tijaabisay oo aad ka heshay oo ku toosay waxaa idin rajeynayaa inaad commentiga iigu reebtaan oo maxay ahaydee wixii talo iyo tusaale aan mees iigu reebtaan akhyaarta hore ugu xiran barteeda YouTube-ka ee mar walba daawato laagta ii saarto maxay ahaydee asxaabta kalena sii gaarsiisan waa u mahad celinaya boqolkiiba boqol aad iyo u mahadsantiin adigana haddii aan ugu cusub tahay nagu soo biir waxay ahaydee inaan nagu soo biirto muhiim ayay noo tahay weynana farxad gelinaysa insha Allah تعالى ولاشين هنجافل maanta maxay idin sameysay zabaadigaas idin sameysay ama yogurtkaas ama waxaan ku dhacaana fadhigaas macaanta badan leh guriga ku sameysay adigoo meel dheer aadan fahanteen marka ka faa'iideysa haboon sida uu sameeyay iyo waxyaabii aan ka sameeyay qaabkii aan u sameeyay inta wado uu maray markii la sameeyna insha Allah waxaan rajeynayaa in ay igala faa'iideysan doontaan oo ay la arki doontaan ka bacdan inta aad sameysataan ma aragtay commentiga feedback ugu soo sii doontaan insha Allah digsiga meesha soo saarto wali dabka ma u shidan waxaan ku shubanayaa biyo biyo 2 koob 3 koob 4 koob marka waxaan ku shubanayaa galaas buuxo oo caano ah caano booraha caadiga ah aan ka sameeynayo insha Allah ana caano booraha maxay waa tijaabiye caanaha lo'da ama caanaha xoolaha waa tijaabiye hota caano geel wax la dhaho ma lagu sameyn karo waxa lagu sameyn karo on la waa caano xoolaad iyo caano booro oo kale ah caanaha lo'da iyo caanaha booraha oo caadiga ah marka hadda waa walaaqa markii aan walaaqa bacay dabka u shidaa insha Allah marka waxa ka helay aniga caano booraha ka helay ma fahanteen waa tijaabiye caanaha lo'da caanaha waa tijaabiye dhadhanka markii la dhaho waxa aad u macaan badan oo zabaadiga u dhawaanayo si sax ah oo laga ka seenay mid kala soo gaday midkaan marka dabka saaray way soo buriyeen way soo karkareen cabaaray saarnaayeen saasna u soo buriyaal rab because of labeenta laga rabaa in laga bixiyo oo jeedina amaleena digsigu soo buuxsan marka waxa sameeyna hadda waa kadib waa gaabina dabka ina meesha u dambeysay hadana walaaqaasi oo sariiga burin oo banaanka u bixi bilisna ag taagnaaw caanaha marka dabka saartay ilaa waxaan ay caanaha waa moogta burinaayaan yaa waxaa yaqaan dadka caanaha la oo jeeg ku soo karkarin jiray dadka fahmi kara caanina laga ag tagin ma fahanteen marka maasha Allah wuu soo karkaray waxa sameeyna hadda dabka kadibna meel aan dhigay insha Allah uu isoo qabooba قبو برفنا ما نربنا نقضي قند على جرا إنه نقضي فهمتين زبادي استعمالي كدونا كم واي دلنا عليه يعني استعمال دونا أو أنكش بدونا عنها إن شاء الله إذا نبحي قاعدة محي هذي لتر يسدد بقول قاعدة هذا لبل لتر واحد من قاعدة مروين كاسن دلنا كتبوا بدونا إن شاء الله تعالى هوري وباهنتها ما فهمتي اللي هوريو وباهنتها وشو كمان يبورسيرو المهمر كي راينا مركا استال إيميل جينا أما الجو هذه أنا وقاعد جرح فايد يدركيو علشان waxa uu keensaday inay uu dambeeyay kaliya marka waxa sameeynaa muhiimadda marka yogurtka ama zabaadiga waxa waa in laga qaado labeenta because of caanaha zabaadiga waa caano marka caloosha dadka xanuunayso isticmaalaan ama dadka subaga aan rabin oo caanaha dufanka aan rabin isticmaalaan soomaha soo marka waxa u karkarinayna caanaha waxay tahay in labeentaas ay naga baxdo caano xoolaad haday yihiin saana u karkarinaysa meel dhigaysa labeentaas iska qaadaysa muhiim waa in labeenta iska qaadaysa tartiib uga qaadanaysa ma fahant si aysan kaaga dhaxmilmin waa subaga dhan caano yogurt daa maqashad waa caano aan subag lahayn oo subag laga qaaday ama caano garoor hadaa maqashad waa caano subag laga qaaday marka muhiimadda waa in subaga laga qaado caanaha waxa loo karkarinayo in buriyaan loo rabo waxa waaye markii la buriyaan oo meel dhigo ay qaboobaan kor waxa ka soo koray labeenta in iska wareejsid waa marka caanaha meesha ku soo darsana adiga 4 qaando u buuxbuuxid camal ama bakeeriga barkiis ma aragtay bakeeriga shaah lagu cabo barkiis oo maxay ahayd yogurt kaaneeto waxa caanaha dhadhanka siinay oo bedelay insha Allah muhiim waay ma fahanteen marka halkeena bakeeriga ku darsanayna insha Allah taala marka aan ku darsanona hal bakeeri ma ahaya half bakeeri waaye ana yogurtka isticmaalaysid bilis ahaada yogurt oo plain yogurtka hadda yogurtka baleenka ah marka hadda waxa sameeynayaa habeen aan sameeynayaa adi hada walaahi waa waqti dambe oo waliba 7 saac habeenimo aan sameeynahay inuu waagu u baryaal rama fahanteen dhaladaas ku shubanaysaa maradaas ku xireysaa
toddoba saac weyne marka hadda aan kasoo qaadno subaxina aan furay maxaa la dhahayay 1 saac oo subaxnimo waa adiga 7 saac 8 saac 9 saac 10 saac 11 saac 12 saac 1 saac adi 7 saacadood oo kaleetood waa ma fahanteen marka 6 saac 7 saac 8 saac camal inuu maradana marka waxaa sameynaa kor iyo hoos ugu xiraa boorsada iyo ku rida afka dhabka siiya asagana ma fahanteen waa dhigayaa beri subaxdii anoo ballan hadda marka waagiyaa noo bariyay alxamdulilah rabbil caalamiin waa furaneynaa marka siduu kusoo baxana waa ila arkaysiin insha allah muhiimada zawaadiga waxaa waaye qandac yariis maaragta oo ku gubeynin iska dhaaf maxay tahay faryarta haddaa gelisa xataa aan si fiican looga dareemeynin maaragta faryartaa faraha ugu jilacsan mugtahay faryarta saas u gelinaysaa inaada dareemin aa la rabaa kuleyl markaasaa dhalada ku shubanaysaa dhalada anit waxaan kasoo gaday ani midnimo supermarket kasoo gaday waa dhalo maasha allah aada u fiican ada haddaa haysta weel kale oo daboolan maaragta oo dhakab dheh waa ku darsan kartaa haddii iyada u baahan tahay laftarkeedana midnimaa kasoo gadan kartaa zoobbuu ku yaalaa ma fahanteed marka zabaadigeeni saanoo noogu soo baxay ama maxay aheeday yoogadkeeni maasha allah tabaarakalla hadda waxaa sameynaynaa marka subax waaye talaajada gelina insha allah talaajadaa geliyey hadda kasoo bixiyo marka waxaa u isticmaali rabaa ani oo badanaa u isticmaalaa habeenkiina ama casho ka dhigtaabo qajaarkaas iyo mooskaasiti laanahu yacni habeenka cashada badan ma fiicno mana jecla ani sideeda banaan inaa cashay habeenkii marka hadda 2 qof aa ku cuni rabnaa dadka kale saas ma u jecla yoogadka aniga qof kale aa cuni rabna hadda marka moos iyo waxaa soo jarjartay maxaa la dhahayay sheeg iyo qajaarkii wiilasha kusoo shubtay suu adeegyaa fiiri xataa yoogadka laga soo gadayo supermarketyada wuu aad uga adag yahay maasha allah tabaarakallah wuuna ka fudud yahay wuuna ka tiro badan yahay ma fahanteen marka waxaad rajeynaa inaad sameysataan yoogadkan waa ogtihiin amalena qof haddii caloosha laga qabto ama qof u baahdo Soomaaliya waxaa waaye inuu supermarket aado ama meel dheer aado marka waxaa sameysa talaajada gasho xilliga u baahatid ilmaha inaad siisatid ama aad isticmaasho ama cuntooyinka ku darsatid digaag iyo waxyaabahaas oo kale mutabilka marka loo sameynayo lagu sameysaa Soomaha marka inaad sameysataan oo talaajada ay gashataan ka bacdina maxay ahayd tartiibtiina u isticmaasho ani maasha allah aad uga helaa subaxda xataa quraacda marmaarad gab u siiya sokorteeda soo ku darsaa wax yar oo been dhanaanka si oo wax yar iiga baa marka maasha allah tabaarakallah sidaas u jeedino quruxda badan leeyahay oo laga sheekay karno noogu soo baxay insha allah tijaabi aad u fudud u yahay yaan Soomaaliya daa joogna anaga dhibaa ku qabnaa zabadig raadi supermarket ka doon dukaan dheer ka doon xayda soo waqtigiis dhow yahay soo hel walaahi marka maasha allah kan qofta barta ma aragtay aad uga helaya marka insha allah soo dhawaada walaalaheyga bilis janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe iyo saara like iyo dhaha share dhaha asxaabtiin isi gaarsiiyo waa mahadsantihiin